caamo iyo ku culama shalay baan ku soo eeri waqtigan ku bixin maayo waxa laga yaabaa hadii ilaahay nafta ugu sumay inaan mowduuc gooni ka caqidee waxaan uga jeedaa muslimiintu way kala baxeen carab iyo cajamba dariiqooyin baa la noqday firq iyo kooxa la noqday nin walbana marka asaga sheegan inuu quman yahay oo saxan yahay oo wax ka baxsan uusan jirin xaqan ma dhaafo asagu wixii asaga dhaafana waa baatil iyo xaq darro waa la isku baabay caamada marka way wareertay marka inaan dhaano caamo iyo ku cuma garweey 2005 iyo 4 meelahaas mar Yemen tagay 2004 waxaan u tagay reey Yemeno ku hayo kuunu macal ulama wadaadii Yemen wahabiyada baan ka hadlay reemeno dhan ma aha wahabiyada oo ku haysa كونوا مع العلماء لا تخالفوا العلماء التفوا حول العلماء احترموا العلماء وقروهم وقدروهم كونوا مع العلماء والعلماء هاوش المحي هاي وهابيه يمام قال لي وحير بدكتين بقول كيف حتى طول لما دنيه شيعة بوحدهم ماشن زيدي يسكو قوفلان شافعي عركوا جوجتو اغلبيه ساحقه وحن ومركا اشاعره iyo isku dhaxtaa lama turidii aan badnayn iyo in madaahib badan ba kala qaba idan marka cudurku waagi waan la yaabana cudurku waagi ba hadana Soomaaliya soo galay wadaad walba wahabi ba hadlo xudu culimada la khilaafin culimada hal ixtiraamo culimada laga dambeeyo culimada hada runta ma la soo sheego garweeye warkii shaadan cawlihan weeye raxmatullaahi ta'ala alayhi shaadan cawlihan baa la fadhil isku yimid culimo fadhiyo alla baro isku yimid Soomaali xamar oo taqriiban 8 sano kor ama 7 sano kor ayaa nin istaago wuxuu yiri sheekhu maanta waa dantin culimo wax ka maqan ma jiro anagu caamana waan wareeray waxaad yeelaysan culimo inta tashataan oo isku lagu duwataan hal war noola imaada hal go'aan waa war nin weyn shaado nin xigmad badan buu xaqna hadal yar buu ahaa culimo badan buu dhalay koonfur sheekhoodii way sheekh reer koonfurada xaqa ahkaanta iyo fiqiga way marka wuxuu yiri wadaado anagu ma anan culimo kuma wareerinine waxa ku wareershay buu yiri nin anagu aan caamada ku tirino idinkuna culimada ku tirisaan hadiye albaliye buu yiri anagu markaan sharayna wada joogna hadan culimada wuxuu nagu tirsan yahay caamada culimo marka caama markay shaacabina waxay ku tirsadaan culimada dibku nin kara wada buu ninkan aska qaban garmatay misama garway waxaan leeyahay wahaabiyo saraaxooda umada been ha u sheegida meelaha ku xabeebanina culimo Soomaali midayso ka dhaxaysan meejo Soomaali way qaybsan tahay suufiyo iyo ashaaciro iyo shaaficiyo qaadiriyo saalixiyo nawiyo zayliciyo siwad inta dundage culimo ay leeyihiin oo waa ummad balaaran oo Soomaali hadaysan u badnayn kala badba ku dhow ma tamisama idinka wahaabiya waxa idin ogyihiin ma jiro culimo idin ay yaqaanaan خوارج دبدا كتيم بريسون وشياطينا بيدين أركان ما تايم سما إسلام مساجد وهم بيكوليين وتألف كإيطات كإيش وقبو حق بلاز مساجد بيكوليين نمان أخوان أو إصلاح جرو ولا تركو وصار كإنهن حكماء عقلاء إن در جرد أخيار عقله حكمة أيسن دافين إذن كان إذن أركان نمان وارن وبرلظوله oo salaada on ku nafbaxay Allahu akbar ton ku hayo oo sarwaal gaaban iyo rumay loo ordo iyo kitaab yar masxaf la jiido iyo qamiis iyo cunad la feermay aqli kale baan haynin ummadana lugooyo mooyeen wax kale ugu maqleen bayna arkaan war ma tahay misama ma ayaan wadaadaha waabiyada caayay laakiin waaqac jiraan ka waramaya aqli daridina waxa kamid marka waaqac laga waramo yadii wadaadka dadkii buu caayay war cudurka jira hadaan la sheegin sid ku bogsareysaan nimankan waa dhoobayin waaga dambeeyay inta qadan waayeen bay xataa salaadina ka goosteen hadda ciidaha kay ku tukadaan garoonka weyn bay ciida ku tukadaan isliha iskuul bay ku tukadaan idinka soo tagay sal cali kalaab iyo muxuu ahaa meeshii garoonka buraan isii dadka ku rigeysan jirtaan ka soo tagaba muxuu ahaa isli baremer bay ku tukadaan Soomaa almihi waad fahanteen garatay anu ma aqaan waxaasi muhiimada ka raaca maxay soo yaray niman jadiidiyo waxa joogay oo nafta ka baxday Nairobi wadaad cukaasho leh oo miskiina ka matala marka Hargeysa la joogana wadaad asna isaaqo la yiraahdo Cabdikariin Xasan Xooshi Barbaraawi ka matala koonfur yaan ku ogaa
maxamed axmed imaam iyo xasan xaab uu geeriyooda allah u naxariistay ayaa kale koox baa joogta ayaguna kulligiinba waxay arkaan ama qayb gaala oo dee nimanka kufriga ku dhacay waaweyn ah iyo ahlulbidac shayaadiin ah kelimadii hore maalinkii aan wadana risaalo yareed waa kii waraaq la ii keenay wadaad jidid soo diro uu leeyahay waaga aad ictisaam saareed waan kula yaabanaay haddan ogaada inay shayaadiin yihiin waraaqdan akhriso soomada joogin maalinkii war wax tabliiqoo ayaguna ballaan umayn afrikaba ay qabsan doonaan kullina lagu biyo shiban doonaan adduunka dhooban yihin oo soomaali ayaga hadda hogaamiyaba waxay idin ogyihiinna ma jiro culumaya leeyihiin niman wareersan oo nusuus aan weli la gaarin xilligeeda dabaqahaya ayay idin arkaan oo wareersan sheekh muxuu ahaa sheekh israafiil allah u naxariist oo 93 waa la baxay 440 jamacada waan soo maray xoogaal baan u ahay wahaabiyada iska caraatanta anigu ma marka tabliiq la maray waa iga warqabtaan fas'al bihi khabiiran walaa yunabbi'uka mithlu khabiir ceel ninkii galay baa la warsadaa ayib haddii aan isku helaa akhlaaqda tabliiq iyo ikhlaaskooda iyo tadxiyadooda iyo waxquurhkooda iyo maamulka ikhwaanulmuslimiin iyo agaasinkooda iyo caqiidada wahaabiya isku heli lahaa awliya baan noqon lahaa baan u malay waad i fahanteen baan u malay biyadhacaygu waxaa weeye yaana ku wareerinin hadale kugu daalina waxaan u jeedaa wadaadka soomaalida culummada ha la raaco culma yaan la khilaafin culummada ummadda runta u sheego waxaad tiraahdaa annaga tabliiqa keliya aan na soo raaca oo aniga sheekh hebela in hebelebel ay soo raaca wixii kalena shayaadiin iyo tuug wey been ummadda u sheegay ummadda ha wareerin caamada yaan la wareerin war caamadu way qaybsan tahay nin walba culummu leeyahay runta u sheeg ha ku luguyn macaan jirin oo been ah waxay reer yaman ku baabi'een ummadda ha ku baabi'in say kuunu macal culama bay xataa damaaj ka carareen meelay ku dambeeyeen hadda lama yaqaan markii loogu soga xataa waxay iska difaaci waayeen raafida iska difaaci waayeen ummadda been ha u sheegayna culumadee waxaa fiicnaan lahayd intaana la yidhahdo waxbaa takfiirisaan iyo jihaadiin baa taageersantihiin oo ama la caydhsado gooni bal noo dhiga intiina kale intaad isu tagtaan inaad wada saxantihiin oo walaalatiin soo aamina waa dhawoydba wadaad wuxuu ina yidhi masaajidkan qolyahan reer daraxdooda kuma tukataan waxaana masaajidku aan ku tukanaay wadaad baanan la tukanin taa marka waxay keenaysaa inaad khawaarij iyo takfiir tihiin buuri waxaan ku nidhi haddaad run sheegaysoodoo beenala ahayn xaq balaasay tu alifka aduu la tuko qolyaha ku tukada bal beenta ummadda loo sheegi wadaadka wahaabiga ee islii sheekha ka ah wuxuu rabaa inuu ku dhaha hebel lama tukada adoo takfiir baata 40 sano oo waddankaa uu joogan weligii wadaad sufyaan lamuusan tukanin inuu la tukadana mu ogolo masaajidka tu alifka muslimiin dhisteen weliba la iskugu tagay inuu ku tukada ma ogolo xaq balaas ayadoo laga aqiimo dhaafi wuxuu aadi masjid kale taadka ku tukan mahayo mid asagoo ay saaxiibo yihiin ood gaalnimo ku ogatahay markaad salaada ka goostan wuxuu ku dhibcaa tahay khaariji baa tahay cadaaladda wahaabiyada barhkeed halkaasuu maraya yaysan ku dagin ummadda runta u sheega daacadnimadu way wanaagsan tahay ninkii isaaqi loogu tegay meecilla asagoo farmasiya ku haysta ummadda daaweynaya nimankeeda ka tegay baa iga sheeg dhalinyaroo booqday waxay dhaheen meesha maxaad ku haysa waa dhakhtar daawo ma hayo wuxuu ihi meeshan ummaddan baan hayaa dhakhtar u ahay haddii waxba ma haysid daawo ma taal wax ma yaal maxaad ku caawisaa wuxuu ihi daawo ma haya daacadnimaan hayaa buuri ummaddanaan daacad u ahay buuri barasti moolkan siin buuri novel jinkan fooda u gelin hayaa ilaahay baa ku caabiraya waxaan u jeedaa war ummadda yaa la siri runta u sheega annaga bal noo kaadsho oo intiina kale intaad isu tagtaan inaad wada saxantihiin oo ahlullahi wadatiin isku daba tukada midooba kadib annaga noo tashada gabagabadooda waxaa weeye nabigu sal ly slam xuquuqdu idinku leeyahay ha la barto hana la ilaaliyo ha lagu dadaalo ninkii inuu nabiga waxtari loo arkan ha la taageero ilaahana laga cabsado shalay waxaynu soo dareerinay shalay waxaynu sheegnay abyaad uu wadaad iska leeyahay gabyay qolyaha waxay dhahaan beydkaad gabsay nin suufiya oo khuraafi ah iska leh caqliga wahaabiye weeye moogtahay war wax walba khuraafi baad sheegtay ee yuhuudi netanyahu hadduu shay xaqa sheega waa ka qadarayna sadaqaka wahwa kaduub nafsi alfidaau liqabrin anta saakinuhu
فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والشيم وصاحباك لا ننساهما أبدا منا السلام عليهم ما جرى القلم gabaygaasi gabay qiimo badan wey aad wixii khaldanna waan iska leexinaynaa wixii wanaagsanna waan taageerina wadaadku wuxuu leeyahay waxaa munaasaba inaad sheegto taariikhda muxaadarada ay dhacday idinkaaba ku qortay intaasi dhibba ma laha cajalka inay gashaan rabnaa baa la yidhi 5 bishii Rabiicu Thaani 1436 baanu qabanay galabta oo hadee maalin isniin ana waynu gabagabeynaa insha Allah taala oo 6 bishii Rabiicu Thaani 1436 oo ku beegan 2015 bishii koobaad 26 ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii khayra ee wanaag uga jeeda idin ku anfaco wixii khalad ah ee ku sariigtay ama aan ku joogsan u qasna Allah ay dhaafo nabi maxamedna waxaan leenahay udran ilayka ya rasuul Allah alla billahi tawfiiq